degmada Buur Saalax ee gobolka Mudug waxa ay tusaale u tahay deegaamada ku bulaalay isku tashiga bulsho waxgaradkuna way garowsan yihiin inaan horumarka dalka lala sugi karin dul qalaad maalin batiin oo haboon inaynu qabanno isku tashi wax aad muhiim u ah weeye haddii dadku ay isku tashadaan wax walba qabsan karaan markasta waxa laynooga baahan yahay inaynu horumarka dalkeena iyo dadkeena ka shaqeyno dalkeena iyo dadkeena waxaynu ku horumarin karnaa inaynu hurno hantideena aqligeena maskaxdeena aynu tuujinno howlaha horumar ee degmadani ka fulay waxa buddigu ahaa dhaqaale dadka deegaanku biiriyeen dabadeedna sidan u bidhaamay maalintan ayaa xariga laga jarayaa laamigii labaad oo hab isku tashi ay bulshadu ku dhistay kaas ay dhismihiisa hirgelisay shirkadda wadaniga ah ee Kabaarko furaya ama laga xarig jarayaa 1 kiiloomitir oo laami ah oo ay ku dhisteen dadka deegaanku isku tashi oo runtii muddo dheer soo socday baahi loo qabay awgeed dadka deegaanku arrintii way sii wadeen si ay uga miro dhaliyaan himiladoodii iyo hiigsigoodii habboonaa maadaama baahi weyn ay ka jirtay oo gaadiidku u mari waayay halkaana ay isticmaalaan dadweynuhu aad ay u isticmaalaan hay'adda wadooyinka Puntland oo had iyo goor hubisa tayada wadooyinka Puntland laga dhisayo ayaa bulshada Buur Saalax ku amaantay howlaha muga leh ee ay wadajirka ku wajaheen bulshada Buur Saalax waxa ay tustay bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan in isku tashiga iyo midnimadu horumar weyn lagu gaari karo horumarkaana maanta waxa lagu gaaray isku tashi aad iyo aad baan ka mahad celinayaa sida isku duubantihiin uga shaqeynaysan horumarkiina hay'adda wadooyinka wadadan waxay ku lahayd ka warqab iyo ilaalinta tayada shirkadda wadaniga ah ee Kabaarko oo joogto u gardaadinaysay howlaha horumarka wadooyinka Puntland ayaa shaqadan fulisay waxaana madaxda shirkaddu goobtaas ka sheegeen in ay mar walba diyaar u yihiin garabgalka shaqooyinka bulsho oo ay horeyba uga geysan jireen gacan waafiya marka shirkaddu ay ayadu diyaar u tahay oo fariinta kaliya anigu diray ay tahay dadka inaan garab istaagno isku tashigana aan anagu dabada qabanno mar kasta oo wax loo baahdana aan qayb ka ahaano wadadan 180 bay ku qiimeysnayd 40 annaga sii deynay waxaan niri waan ku darsanaynaa 140 bay bixiyeen 40kiina waa lagu leeyahay waana laga helayaa howlahaasi hagar la'aaneed shirkadda Kabaarko lama qabanayso Buur Saalax oo kaliya waxaana madaxda shirkaddu sheegeen in deegaan walba oo dalka ka mid ah ay diyaar u yihiin garabgalkiisa ilaahay idinkiisa waxaan rabaa dadka deegaanada Soomaaliya degan degmo kasta ahaadaan iyo magaalo kasta intaan ka gaari karno cidii wax noo kasta waxna waa ugu daraynaa si fiican baan uga shaqeynaa wax tayalana waa uga tagayn hadii aan qorshahayo waxa weeye in dalku uu noo dhismee inaan hanti ka sameeyno uma labisanin jidkaani 180 iyo 200 iyo 300 midna uma baahna ka badan buu rabaa hirgelinta wadooyinku waa bilowga horumarka deegaanka maamulka gobolka Mudugna waxa uu ilaafay in jidkan uu furo u yahay koboc dhaqaale oo cusub waxa ay farxad u tahay bulshada oo dhan waa wado halbowlo ah magaalada iskoolada ka timaada magaalada weyn gasho oo ku dhacda ee wadada kale oo laamiga ah waxay wax ka bedelaysaa si socodka dadka iyo nolosha dadka waxbay ka bedelaysaa waayo meeshii in yaroo horumar ku soo kororto alaabe isbedel baa ka dhaca xagga nolosha ah sidaa daraadeed wax weyn bay bulshada u tahay dhismaha wadadani waxaynu ku soo kordhinaysaa wax badan oo dadku ay baahi u qabaan gudoomiyaha gobolka Mudug waxa uu shirkadda Kabaarko uga mahad celiyay dhismaha jidkan oo in ay hirgeliyaan ka sokow ay qayb ka yihiin dhaqaalaha lagu iibiyay waxaan si gaar ugu mahad celinayaa hay'adda shirkadda kambaniga Kabaarko oo wax badan oo dulqaad ah sameeyay intii wadadan la sameeyay haatan asagoo lacagihiisii wali in badan leh dhameystiray waa ku mahadsan yahay Kabaarko waa kaaga mahad celinaynaa waana sidaan kugu baranay waxaan kale uga mahad celinayaa kharash dheeri oo ay ku dartay ilaa $40,000 gaaraya waa uga mahad celinaynaa Buur Saalax iyo bulshadeeduba waxa ay muujiyeen tusaale ku dayasho mudan halka shirkadda Kabaarkona kaalin muhiim ah ka qaadatay dhismaha kaabayaasha dhaqaale ee Puntland adeegga casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeegga suuqgeyn ka iibso wax kasta oo aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeegga suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Golis app haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Golis app